داودهنا شرفت لها halkan waa wargal media subscribe share video like share una share gare asxaabta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aniga waxaan idin siinaa kaliya xoogaa yar oo koobid xaalka meeshu maraya sidaan xalay mar dambe aan ku dhawaaqnay waxaa jira kiisas badan oo soo kordhay hadda tirada guud ee dadka qaba cudurka waxay maraysaa 237 qof ayaa positive ah dhimashada nasiib darro waxay gaartay ilaa 8 xaaladood ilaahay ha u naxariisto sabir iyo iimaan Allah naga siiyo intii ku geeriyay xanuunka isbitaalka Martini waxaa jiifta ilaa iyo dhowr 10 qofood oo xanuunka la yaala wax daran ma aha intooda waana la tacaalayaa oo si fiican aan loola socdaa waxaan bilownay qorshihii labaad Martini 2 ay ahaa isbitaal banaadir inaan qayb ka helnay oo aan sidaan shalay ku wargelinay saxaafada qayb loo gooyay hadii lacala uu buuxsamo isbitaal Martini in iyadana dhinacan loo wareejin karo saakay waxaa howl galaya shirkadda Hormuud oo aan aad iyo aad ugu mahad celinayo oo naga kaalmeynaysa in afarta qaybood ee loo gooyay banaadir laga gooyay ee lagu la talcaali doono dadka cudurka soo rito ee lagu xanaaneyn doono iyaga dib habeen ku sameynaya Hormuud waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahad celiyo sidoo kale waxay ahayd Hormuud shirkadii ugu horeeyay oo call center ka nambaradana siiyo si dadka xanuunka qaba ama isaga shakiya ay soo wacdaan waa wax lagu farxo in dadkeenii maalqabeenka ahaa ay safka hore soo istaagaan ay dawladda ku kaalmeeyaan wax allaala waxay ku kaalmeyn karaan waa mahad celinayna waxaa jiri doona isbitaallo kale iyagana la raadin doono hadii alla idin si loogu diyaar garoobo lacalla hadii loo baahdo tirada waxaan u jeednaa inay sii kacayso marka waa waajibna saaran ee dawladda saaran inay hesho meelo badan oo kala duwan oo magaalada gudaheeda ah in lagu xanaaneyn karo oo dhinacyo badan magaalada laga asteeyay isbitaal banaadir Martini hawshiisa waa la dhameeyay alxamdulillah waxa ka shaqeeya dhaqaatiir iyo firfircoon oo diyaar u ah 24 saac waxaan ku talinaynaa marka maadaama numberka uu sii kordhayo xanuunka magaalada uu ku jiro in horta qofka bani aadamka uusan qarsanin uu soo waco nambarada oo soo raadsado talo si looga kaalmeeyo wax allaala wixii loo sameyn karo tan labaad waxaan leeyahay dadka waxaan ku boorinaynaa ummadda Soomaaliyeed in mar walba ay taxadirto cudurkan waa cudur laga hortagi karo waa dawladda waxay ku dadaashay in diyaaradihii ay istaajiso shaqadii la iska fasaxo wadanka la xiro aan la soo galin aan laga bixin hadii aysan ahayn xaalado bani aadanimo waxa loo yeelay in cudurkan aad loo xakameeyo oo la dhimo inuu ku faafo gudaha bulshada qof kasto inaga naga mid ah waxa saaran waajib in uu ka hortago qofka gurigiisa inuu isku xakameeyo in uu ku dadaalo nadaafadda siiba gacmo dhaqashada ayadoo saabuun iyo sanitizer lagu dhaqanayo ugu yaraan 20 ilbiriqsi iyo ka badan in ma aragtay meelaha goobaha la isugu taga aan la tagin sidaad la socotaan banda waa lagu soo rogay magaalada wax kale looma yeelin xayiraadaas waxa waa in hoos loo dhimo chanska in dadka ay isdhex galaan tirada dadka uu ku dhacay cudurka waxay u badan tahay dadka dhalinyarada 20 ilaa iyo 40 jirka alxamdulillah waa dad intooda badan xoog leh immunity-gooda u fiican yahay laakiin ogaada qofka jirkiisa mar haduu jeermiska galo waa gudbinayaa xataa haduusan xanuunki ilaahay oo ku ridino oo san ku dhicin marka ha u gudbinin xanuunka reerkaada iyo cidaada iyo saaxiibadaada iyo dadka aad jeceshahay gurigaada joog isxakame hadii aad aragto calaamadihii takhaatiirta iyo dadka cilmiga u leh ay sheegeen oo la leeyahay intaan waa calaamadaha soo raadso kaalmo caafimaad waxa kale oo rabaa inaan ka codsado dhakhaatiirta iyo isbitaalada magaalada joogto Dr. Fujana waa iga dambeyn doona si fiican waa u sii sharxi doona dadka ha ka celinina isbitaalada markay yimaadaan qofka waa waajib inuu soo raadsada xarun caafimaad haduu dareemo caabuqa